بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. waxaan filayaa waxyaalo fara badan oo waaqiceenna maanta khuseeya ayaa miiska noo saaraa. walaalaha hormuudka ka ah in la badbaadiyo ummadeenna, caqligooda iyo naftoodaba nabad iyo wada noolaansho lagu soo dabaalo. casharadeenii diiniga ahaa iyo waanooyinkeenii iyo baaqeenii nabadda ku salaysnaa iyo taxanihii maanfurka iyo hidadhowrka waxaa soo dhex galay dhacdo aada u fool xun oo xaqiiqatan inta damiirka leh ay ka hurdi waayeen, ka hargeli waayeen, qalbigooda iyo maankooduna uu qaadan waayey. marka loo fiiriyo dunida aan joogno, dhacdadu waxay ka mid tahay musiibooyinka dhaca, laakiin marka la eego qaabkay u dhacday iyo bulshada aan ka dhalanay, dhaqanka iyo hiddaha iyo sharafta iyo gobonnimada ilaahay ku manaystay, iyo maanta meesha aan kasii daadegayno wax aada u kala fog weeye. arrintaasi marka waxay kaliftay dhacdadii foosha xumayd oo gobolka mudug ka dhacday, oo gabdhaha da-da yar lagu dhibaateeyey, oo naf iyo sumcad iyo sharafba lagu waxyeeleeyey, inaanu caawa wax iska dhahno oo dadka meeshaa jooga raqaba ku raggeeda weeye aanu dardaaran iyo hadal aanu u dirno fartiin waxay noqotay lagama maarmaan. waxaan isku dayaynaa si aanaan duruucda uga habaabin, arrintu xanuunka ay leedahayna aanaan ula qalbi qaadmin, annagoo kontaroolayna damiirkeenna iyo garashadeenna inaanu isweydiino su-aalo dhowra. su-aasha koowaad waxay tahay, maxaa dhacay? waxa dhacayay ku dhaceen? yaa geystay? maxaa keenay falkaas inuu dhaco? xal maxay noola muuqataa? waxa dhacay waa dembiye fara badan oo ishuwan. kufsi baa dhacay, dhaawac jirdil ah baa dhacay, fadeexad baa dhacday, dhaawac maskaxeed baa dhacay, sharaf dhac deegaan baa dhacay, afduub iyo haysashaa dhacday. intaasuba waxay dhaceen ayadoo la adeegsanayo hubkaas ama hubka automatiga ha ahaado ama hubka loo yaqaano yani asilaaxu alabyad oo gacanta laga isticmaalo ha ahaado. intaasaa dhacday. kufsi baa dhacay, dhaawac jirdil ah baa dhacay, fadeexad dad sharaf loo jeystay baa dhacay, dhaawac maskaxeed oo si looga qabsadaa ay culus tahay baa dhacay, sharaf dhac deegaan oo ummad hiddahooda loo jafay baa dhacday, afduub loo geystay gabdhahaasaa dhacay. su-aasha labaad waxay tahay, dhibaatadaasu yay ku dhacday? dhibaatadaasu waxay ku dhacday gabdho da-yar oo damiir leh. inay damiir leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay jirkooda iyo sharaftooda qarinayaan ayagoo la qasbayo. gabdho diin leh inay diin leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay dooranayso ay leedahay kow iga sii, oo uu toorayda gelinayo oo idil intii aan xumaan iyo fadeexad aan jeli lahaa.
oo ay ku bareertay ilaa laga awood bata maahe inaanay sharafteeda raqiis ku bixin oo karti leh inay karti leedahay waxaad ku garanaysaa sharaftay ula hadashay iyo siday u baryootamayso oo dhalashada iyo dhiigga xasuusinayso marka baalka uu goosanayo jirkeeda yaa geystay dhibaatadaas dhibaatada waxaa geystay wiilal iyaguna da'yar oo lagu barbaariyay raggu inuu muhiim yahay oo lagu barbaariyay xeer rageedku inuu wax walba ka sarreeyo sharci walba oo lagu barbaariyay dhibka ugu badan oo imaan kartaa inay tahay ninku gabadhuu kufsado in loo guuriyo oo lagu barbaariyay mar haddaan dhiig rageed daadan inaan xal loo waayay musiibo naaga ku dhacda iyo dumar mentalitiga caynkaasa wiilal lagu ankariyey ayaa dhibta geystay maxaa keenay dhibtaas inay dhacdo dhibkaas inay dhacdo maxaa keenay anigu waxaan leeyahay kufsi baa ka horreeyey waxaa keenay xaqiraada hooyada loo geystay waxaa keenay sida hooyada iyadoo la dhaqamaynayo oo la diimaynayo wax aan sal iyo raad lahayn sida damiirkeedii loo dilay kufsigaani wuxuu dhacay maalintii la yidhi raggu dumarka way ka hooseeyaan ilaa shaki la geliyey inay qof tahay iyo inay tahay alaabta guriga la isticmaalo qayb ka mid ah la yidhi ragga waad ka hooseysaa caqligaagaa dhiman diintaadaa dhiman diyadaadaa dhiman cawraa tahay jebigaaguba muuqaalkaagaa cawraa maqalkaagaa cawraa codkaagaa cawraa jiritaankaagaa cawraa markii la yidhi waxay ahayd ama inaad guri lagu hayo ama in god lagu rido ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab dhaqankii duugoobay markii lasoo faagay ninkii shalay sidaa lahaa waidaa bushira axaduhum bilunha dhalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiib yatawaaraa min alqawmi min suui maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab guriga miyaan ku hayaa mase godkaan geliyaa carabkii lahaa dhaqankiisii marka diin laga dhigay markaasaa la kufsaday maskaxda iyo damiirkaa laga kufsaday markii la yidhi in la tashado uma qalanto inay talisana uma qalanto in la tala diliyana uma qalanto u fiirso markii la yidhi sii socodna shaydaan baa dhabarka ka saaran soo socodna shaydaan baa laabta ka saaran waana xarga shaydaan markii la yidhi ayada iyo dameerka iyo eyga madoobaa isku mid ah oo saddexdaba qofkii hormaraa salaada waa ka jabtaa marka la yidhi xargihii ibliiskaa tahay antunna xabaa'ilu shaytaan maalintaasaa damiirka iyo maanka laga kufsaday maalintaasaana ragga qalbiga loogu riday inaanu dumarku dhigooda ahayn zawjkii alla ka gees abuuray oo sharaf iyo qiimada la mid ahaa inaanay ahayn mar horaa la kufsaday kufsiga kufsi baa ka horreeyey godobtirku kufsi buu ahaa reerkii dhiigga iyo dilku dhex mara markay gogasha u tegaysa iyadoo qasban dumaalka aan waxba laga weydiin kufsi buu ahaa in la fahansiiyo in laga sarreeyaa kufsi bay ahayd in laga adeejiyo oo ay magan u noqoto arxan iyo akhlaaq midaan lahayn oo diimeeya in dumarku uu ka hooseeya ragga diimeeya oo dadka been u sheega in laga adeejiyo oo ay marti uga noqoto sharafteeda iyo sinaanteeda iyo wanaaggeeda kufsigu maalintaas u dhacay haddaanu doonayno dhibaatada dhacay inaan calalino inaanu ka eegno gees aan caadifad ahayn inaanu gudaha u galno kuma eka dhacdadii maanta dhacday
كما أكا ويلشي جديد كوتي أو قبلها أفضوبتي أو دور كجيي أو إليس كويفيي أو عورضو قاوي أو شرفتو دعي أو أيغو فرحسن موقال إيا مقال أصور دوبي ما أنتنا كوا أن ضميرك لهين بلشدو أي دحدي غيان كما أكا إنتاس هل جنكو إنتا وكوية هل جنكو وهو يدو اللي يسمكر إلا سوقادو هل جنكو أبال حمضة إلا قدبو نموال بالناس كونوغي ما أنت محوغو أبال قدي وحوغو أبال قدي كس عانا جلين كل عانا جلين كس مقالو إنو يرى هوي عقل مالي هوي وحمقرتو وردمركو سو كوينا نالي ماها كوينا ندشي سو ماها كوان دالي سو ماها كوان ندحي سو ماها dhigeenna soo maaha waxaan dad ku nahay soo maaha aadan markuu gaardiyay asagoo kaligiisa haddaan xaawo laga hareer samayn muxuu noloshaan ka qaban lahaa muxuu macnoo aadan samayn lahaa muxuu qiimo iyo yacni qaayo yeelan lahaa waa waxba aaway mawadadii aaway raxmadii aaway tilmaantii alla uu ka tilmaamay zawj qur-aanku marna ma isticmaalin zawjatun qur-aanku wuxuu isticmaalaa zawj waa laba beer اسكن أنت وزوجك قرآن ما استعماله اسكن أنت وزوجتك كهتان كلب يددك كالهوسين تقص ليسن قرآن ما يقان ومد قمت ومد دوغوبي ومد دلئة ومد سقل دلو ديمي ومد دقن فرح الغسلي وحسح معه waxaan kaga gudbi karnaa in aanu ballan iyo axdi ku kala qaadano noloshayada inta aan nool lahay oo cimrigeeda ka dhiman inta damiirka iyo dadnimada lahow inta hooyada jecelow inta hooyo ay macna u samayso every woman is a mother mar kasta waa hooyo haddaanay hooyo ku ahayn ninbay hooyo u tahay ninbay walaashi tahay ninbay xaaskiisa tahay ninbaa qalbigiisa ka jecel inaan u noolaano inaan hooyada dullaynta farsamaysan oo dhaqanka iyo diinta sida khaldan oo siloon oo guracan loo macneeyay ku salaysan inaan ka saarno hooyada dadka dhibaatada geystay maxaan ka leenahay kuwa gacanta ku lahaya maxaan leenahay waxaan leenahay dadkaas waa in la marsiiyaa xeerka ciqaabta saxda ah ee maamulka ay hoos joogaan uu leeyahay oo sharciga islaamka iyo xeer ciqaabeedka maamulka Puntland labadaba waafaqsan inaan xeer jajab iyo xeer Soomaali iyo yani waxa weeye mentality dumarka yasay aan lagu salayn inaan la quursan xukunkaas in la marsiiyo ciqaabka keenta gaar ahaan kuwooda qaangaarka ah in la marsiiyo ciqaab keenta inaan nin damba aanu isku dayin inuu sidaas qeexan oo qaawan dumarkayga u quursado waxaan ku talin lahaa qof walba dib u eg baaritaan samee waxaanu soo arag hooyadu qiimaha ay leedahay baar laba jir markay gabadhu tahay inay hooyo tahay ogow inay haybadii hooyanimo ay wado ogow inay adduunkan aasaaskiisa tahay ogow dadka dumarka qiimeeyey inay qiimo yeesheen ogow kuwa dumarka yasayna inay duloobeen ogow deegaanba deegaanka oo dhaqankaas iyo diinta sida guracan loo adeegsado ay kaga badan tahay dumarkuna waa looga quursi badan yahay dhibaatada gaartaana way ka tiro badan tahay inaan arrinta dhinaca caadifad aanan ka eegin inaanu eegno
maxaa looga hortagi karaa falkan inay falkan inuu xaqiisii maro inay gabdhahaasi xaqoodii helaan inay damiir ahaan iyo jir ahaanba daawo helaan inay magdhow maskaxeed iyo mid jireedba helaan inay xuquuq saxa maraan in dambiilayaasha cadaaladda la horgeeyo in xeerka ciqaabta ee maamulka ay hoos joogaan la marsiiyo inaan xeer jajab iyo sidii dumarka loo dullayn jiray aan la samayn in wadaad xumo dulli ah oo awalba gabdhaha damiirka ka kufsaday oo inay noolaadaan hor istaagay oo yidhi cawraatiin isqariya oo yidhi codkiinna iyo muuqaalkiinna iyo maqalkiinna iyo maankiinna iyo magantiinnuba waa cawro oo awalba damiirka ka duleeyey inaan gacanta loo gelin inuusan xaq u lahayn kii hagoogta saaray asaguna hagoogta wata xaq uma laha inuu arrintaa ka taliyo arrintaas waa inay gacanta ku qabtaan dad damiir leh oo maamulka puntland iyo dowladda soomaaliya inay soo faragelisa wey marnaba dambiilayaashu inaysan yani inaan lagu xadgudbin inaan lagu xad qofku hadduu dembi galo macnaheeda maaha inuu asaga xuquuq lahayn dambiiluhu xuquuq buu leeyahay in lagu xadgudbo maaha qof caadifad leh inuu iska soo boodo oo ilaa saa hala sameeyo dadka hala laayo maaha dembigiisu waxa uu yahay dadka gacanta ku haya oo damiir kalaa la doonaya marsiiya lama doonayo odayaal xeer duuqeyo wata iyo wadaad xumayaal awalba shaksiyadu ka dhimatay oo dumarka duleeyey gacanta in loo geliyo lama rabo puntland maamul bay leedahay dad damiir lay leedahay maxkamaday leedahay degaankuna maxkamad u leeyahay dad lagu kalsoon yahay buu leeyahay dadkaasi waa inay ka taliyaan waa inay mariyaan xeer ciqaabeedka saxda ah oo ayaguna aanay ku dulmanayn gabdhaha dhibka loo geystay iyo waalidiintood iyo degaanka sharaf dhaca loo geystay midna aanay dulmanayn annagu taladaan qabnaa sidaa wey tala caadifad ku salaysan maaha ilaahay subxaanahu watacaala raalli kama aha qofna in la dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo ilaahay dadkiisa ma dulmiyo inay isdulmiyaanna ilaahay ma rabo dulmiguna waa dulumaatun yowma alqiyaama mugdiyaal weeye in laga fogaado wey wax walba oo diin lagu sheego markii la miiro waxay isugu soo biyashubtaan run iyo cadaalad caqsigoodana waa dulmi iyo been watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan waxaan leeyahay walaalayaalow watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan ilaahay oraahdiisii waxay ku soo biyashubatay run iyo cadaalad runta ku dadaala ka run sheega kufsiga iyo zinada afar markhaati baa la rabaa markhaati ma aha markhaatigu qof lugaynaya ma aha markhaatigu waa qof markhaatigu waa maqal markhaatigu waa muuqaal markhaatigu waa kamarada markhaatigu waa biyaha ninka markhaatigu waa dhiigga markhaatigu waa gacantuu toorayda ku hayay markhaatiya dhammaan inta dembiyada caddaysa baa kufsiga iyo zinadana caddaysa crime waa crime dembi waa dembi markhaatiyaashu waa qaraa-inta wey qofkii afka arkaya waa markhaati gacantuu toorayda ku haya waa markhaati kaamaradu ku duubay waa markhaati biyihiisu waa markhaati dhiiggiisu waa markhaati wax alla wixii evidence meesha yaalla waa markhaati wuxuuna waa markhaati ma doonto waxay u baahan tahay keliya qof fahansan sidqiga iyo cadligu inay yihiin aasaaskii dadnimada aasaaskii diinta aasaaskii damiirka aasaaskii dunida lagu taagay qof garanaya gacanta in loo geliyo arrinta ma habaabayso mana hoogayso waa ka hadli doonaa weligayna ka daali mayno sinaanta iyo ragga iyo dumarka weligay waa ka hadlaynaa ilaa la helo equality ilaa la helo sinaan arrintaasu xal yeelan mayso kufsiga maskaxdu ilaa uu joogsado oo la istaajiyo oo dhammaan waxyaalaha beenta oo la diimeeyo toos lagu ifiyo oo la gabadha wiilku kama sarreeyo kama nolol sarreeyo kama sharaf sarreeyo kama diyo sarreeyo kama damiir sarreeyo kama caqli badna kama karti badna kama sharaf badna waa laba da waa laba zawj waa laba beer waa laba qof man camila saalixan min dakara unfa inay lab iyo dhadig yihiin wax macnaa ma samaynayso waxaa macno samaynay lab iyo dhadig waxa u dhaxeeya waa biological difference way kala duwanaansho abuuriseed way maaha mid sharafeed maaha mid maskaxeed kam ahbal
دقن ودقن كاكو دقمية وقرن وايا هبلها ولا الله هبلها ولا قصلا هبلها ولا شكيستا هبلها نروبا ولا سمية هبلها ولا صاحبة ولا كورسدا وقاب كدملها ودقمية ما طبعا كاسو كلها هالجبر أو شرف الجارة ما واحد جارة عن جبر لي لهاي إدا ورميانا طلع هين ورجدا ما تاسو شرفكو جارة كم هذا أنا مجارو dhammaan walaalaha muslimiinta oo iga soo wacay adduunka afartiisa gees waan uga tacsiinaya arrinta dhacday waan u cadeynaya san wax u nahay ma cambaaraynayno tallaabaan qaadayna dadka mas'uuliyiintana waa la hadlayna qaar ka midna waa la hadlay haddana waa la hadlayna kala harimayno wallaahi baan ku dhaartay xukunka saxda ah oo sharciga maamulka Puntland uu qabo shareecada islaamkuna ay taageerayso haddaan lagu qaadin dambiilayaasha gabdhahaasana jir iyo naf iyo maskax waxa gaaraya aan loo magdhabin annagu adduunkani maaha adduunkii hore adduunku waa global weligeeya ka harimayno kuwa gacanta ku haya xukunkaas ama odayaal xeer dhaqameed ha ahaadaan ama wadaad xumayaal ha ahaadaan uga harimayno hadday xukunka afduubtaan meel qaldanna ay ku furaan adduunyada meelay joogaanba ka harimay xeerka adduunkan la tiigsanaynaa maxkamadaha adduunkan ka dacwanaynaa bini aadan damiir leh oo dadnimada hor dhigaynaa kiiska waa waraysanay dadkii evidence-gii waa haynaa wixii aan qori lahayn waa qornay wixii qaldan iyo wixii saxan waa kala garanay wax badan oo aan dhicin oo been la sheegay waa haynaa wixii dhacayna waa haynaa ma doonayno in dhibanayaasha la dulmiyo